بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونكسن إذا لهم بدتكن يداون يوم كسر هذا برنامج كبعضدون أو تضباط ولبهذاهن أو كلات كداوتان داود يا البرنامج كنا تضباط كان وحى أنو كقاعد دقدونا أما صرت قال يقول نغطي إن أنو كعسومه قدوميها جودجا تاكلين تعيد مدى قلب كسيدا مرو بارلين محمود عداوة أو دوان مقالة مقدشة كسر لابتي وحنا جودجاسي أو جودي أوتاجن تاكلين تعيد مدى قلب كسيدا يارهنا قابك قرب جوت الصومالية ده وقيب قاضن الهايين لرجلين تاع إيه ولبا وحقب الشذا عيد مدى قلب كسيدا يجو دجالك حوجني كل جرا عذبك الصومالية هذا ujeedada ka dambeysay Berlin ujeedada ka dambeysay ismaha gudigan maxay ahayd marka hore kadib markii aan aragnay baahida baahsan ee jirto iyo baahida loo qabo in ciidan qaran la helo iyo marxaladda uu ku sugan yahay ciidankeena aan soo aragnay kadib markii booqasho aan ku tagay Soomaaliya aan soo arkay ilmo yar la faacay ilmaheega 19 jir 20 jir wadaniyad ka muuqato taagan cadceeda rabaan dalkooda inay xoreeyaan kana xoreeyaan cadow ku soo duulay ayaa damiirkaygu waxay sii waayay in aan ciyalkaas sanadka dambe aan u noqdo ayagoo meesha taagan marka sanadka tagayso sanadku ah 2012 July marka go'aan waxaan ku gaaray in aan soo celiyo kalsoonidii shacabka iyo ciidanka ee ka baxday meesha ciidan kan si uu u dareemo in ay mar walba garab taagan yihiin shacabkiisa si maskaxda uu uga dhismo ciidanka hadii mar la siiyo hub la aratiro mar walba waxa ka maqan kalsoonida shacabka ciidan aan shacabkiisa kalsooni aan ka haysan ma aha ciidan saanigu qabo meel gaari karo waata marka gudigaasi marka aad ku dhawaaqaysay kala tashatay maxaa sameeysan qaabkii ay gudigaas u dhisteen marka runtii markii aan Soomaaliya tagay oo aan soo arkay baahida ee aan ku wada dagaalka ku jiray jiid hore la tagay soo arkay waan soo qaaday waxaan ula imid magaalada aan deganahay Katrolan waxaan ka bilaabay in aan wacyigelin dadka ku sameeyo horta dadka aan ka dhaadhacsiiyo war yeydan ugu jirtaa inaan ciidan qaran lahaano ما الشعب كيوجي جرتا ما دولة يوجي جرتا ما عدو صومالية يوجي جرتا ما الشعب كي دولة أسوة يوجي جرتا مركز ذاتك وعيقلنا ونقول مية قفك يقول رأي فكر كاس إلاقة نوعها داخل حيلة إن وريجني وحن جينا قبل هذا وحن ذاتك كذا دعسيني ورسعيدا كان ونسي كرنا سعيدا كاني إن أتاكلي كرنا sidee ciidankii shalay uu ahaa ee tayada lahaa uu naqan karaa marka discussion badan wada hadal badan waxa noo soo baxday in aan sameeyno weygi ay isugu xiri lahayn shacabka iyo ciidanka waata marka waxyaabaha markaas gudiyadiina isku imaadeen aad isla qaadateen maxay ahaayeen marka maxaa ku dhaqaaqdeen kid waxaan ku dhaqaaqnay horta in aan sameeyno gudi matala shacabka markii aan sameeynay gudigaas waxaan kale aan sameeynay oo aan u dejinay qorshe howleedkiisa 4 sano ee dawladdan jirto walow markaas aysan dawladdan dhalan ay ahayd lagu jiro doorashadii lagu jiray waxaan isla dejinay waxaan u sameeynay dastuur waxaan isla meel dhignay in ay haboon tahay weyga kaliya because dadka kalsoonida ka maqan kalsoonida maadaama dadka ay ka maqan tahay ee dadka ku leeyihiin yaan ku aaminaa xoolahayna سين وح حاجة عمر سينا يا مسؤول كأه سين كوجا كرنا ماشي أنا قلت هلا قالنا إني جارتو إقاركود يقولين أنا كمان ربنا إن هوب قدنو إقاركود كلين أن أنا ما بتاجر سنو دولة إذا ما ذن وإذا ما قبيل وحن سمين إن الشعب كذا إنه إذا ما ذي سنهين إذا ما قبيل إن أي إذا ما خرب وقتك حاضر كأه إن أن سمينه أكون in gudiga uu baxo oo ka shaqeeyo gudaha dalka wakiilada aan ugu tagayno Europe iyo Mareykanka iyo Canada iyo Australia Carabtana ay ahaadaan wakiilo meeshaas jooga ee howsha ka wada in aan xagga ka furno akoon xagga in aan ka furno xafiiski ka shaqada ka bilaabi lahaa isla markaasna aan sameeyno muwaadin kasta ee Soomaaliya in uu
bishii $2 uu kasoo xawilo meel alla meesha uu joogo yaa loo marsiinaa waxaa loo marsiinaa maadaama hadda uusan jirin system dowladda direct aan wax ugu samayn karno in aan isticmaalno xawaaladaha ka jira dalka ee sharciyeysan in qofka muwaadinka ee joogo qurbaha inta aan kusoo sheegay bishii haddii hal mar uu wax diro iyo haddii uu 10 mar wax diraba iyo hadduu $100 diro iyo hadduu milyan diraba uu $2 keliya taakulayna maaha cashuur taakulayn ciidamada uu ku taakulayo markii qofka sidaas uu sameeyo tiro qiyaas ahaan waxaan ka soo qaadnay in ay joogaan wadamadan reer galbeedka 1 milyan ka soo qaad iyo 500 haddii aan ciyaal ka dhigno 1 milyan ay tahay inta waxa wisho 1 milyan markii laba lagu dhufto 2 milyan ay noqonaysaa shakhsiga diraayay wax ay ka dhibayso ma jirto maanta $2 wax ay goysa ma laha meel walba Soomaali joogto 2 milyan oo dollar markii ay bil walba usoo xarooto ciidamadii waxaan ka ballan qaadnay shacabka ee aan ugu qodbaynay ee duuban ee markhaati ah in lacagtaas aan lagu gedi doonin hub ee dowladda Soomaaliya tan hadda joogta ee tan imaa doontaba ay mas'uul ka tahay qalabaynta ciidanka annaga tan kaliya ee laga raba ay tahay in ciidankii maanta ninka Facebook ku jiro haddii uu dhinto reerkiisa joogto in aan noqono shacabka annaga dadkii duugi lahaa ilmaha uu ka tago caruurta uu ka tago ay helaan waxbarasho ay helaan xanaano ay helaan hoy iyo caafimaadba ay sameeyaan shacabka Soomaaliyeed ayadoo taas ay jirto haddana waxa ay sii jirtaa kan dhaawaca ee noqdo ee maanta kursiga ku fariista ee aan soo karin asagan inaan u sameeyno xeero lagu xanaaneeyo inaan u sameeyno rehabilitation inaan u sameeyno xanaano guud oo shacabka ka timaado marka wiilka dhufayska maanta ku jira haddii uu ogaado maanta hadduu dhinto in familkiisii shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin wuxuu dareemayaa maanta ma dareensano laakiin wuxuu dareemayaa waxa uu dhimanaya inay tahay dadka iyo dalka iyo diinta uu dhaartay ayadoo taas ay sii jirta haddana waxa meesha soo galaysa marka kalsooni iyo niyad inuu haayo askariga maanta inuu dhinto واتاي برلين waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay hadda dawladda federaalka Soomaaliya qorshe cad ay la imaaday oo 6 tiir waxa ugu horeeyay amaanka oo ciidamadii lacagihii la siinay ka sokow waxa jiro lacago guna ah oo lacagaha soo gala dawladda oo bil walba oo madaxweynuhu uu qoray marka ma isleedahay lacagahan tirada badan leh oo hadda aad sheegayso haddii dadka laga aruuriyo waxaad doonaysaa in guddigun ay maamulaan mise waxaad doonaysaa in dawladdu toos ugu shubtaan lacagtan guddigu maamul ahaan because guddigu waa kan hawsha bilaabay waa in uu ahaado maamulka koobaad gacanta ku hayo isla markaasna wasaaradda gaashaandhigga kama maqnaanayso waa qofka kaliya nala maareynayo hawshan aan qabanay isla markaas dawladda waxa laga rabaa iyo wasaaradda gaashaandhiggaba kaalintaas daryeelka mucaawinada taakulaynta annaga aan sameynay inta badan ayaga laga rabaa annaga tayna waxay tahay kaliya in yarba ha noqoto intaas hadda guud ahaan ka soo qaadnay inta yar shacabka ka imaanayso kii dhiibay niyada ugu dhismayso leeyahay Allah ilaahay maanta dalkayga wax taray askarigiina wuxuu leeyahay Allah ilaahay maanta shacabkayga garab taagan in ay dadkii naqdaan shacabka maanta jiro inuu noqdo shacabka 60 jira shacabka maanta jiro inuu noqdo shacabka 77 jira si ciidanka maanta jiro oo u noqdo ciidanka 64 ciidanka 77 jira برلين طبعا waxaad aaminsantahay adigu fikir ahaan haddii ciidanka la dhiso wadanku inuu horumar sameeyo nacam taas waxa kaaga daliil ah haddii amni uusan jirin dawlad ma jiri karto haddii ciidan difaac dawladdaas uusan jirin dawlad ma jiri karto marka ahaanshaha dawladnimo jiritaanka qarannimo waxa ay ku xiran tahay iyadoo la helo ciidan qalabka sido oo dhan walba ka dhisan ha ahaado kii difaaca xeebaha ha ahaado kii difaaca cirka ha ahaado kii xooga dalka ha ahaado booliski ha ahaado security waxa koos garaynaya inaan annaga jirno sharaftayna iyo ahaanshahayna dadniman ay ku xiran tahay in ciidan la helo ayadoo aan ka duulayno sida aan la wada soconno Soomaaliya burburkeeda waxa ugu wacan heerka ciidankeena uu gaaray sanadihii yaraa ee dawladda aan ahayn annagoo taas aan ka duulayna shacab ahaan iska dhaadhacsiinayno
in si soomaalinimo ah aan ciidankeena annaga aan u dhisano ee aan u tusin awoodooda caalamka dib dambe sida hadda nagu dhacday taasna waxay ku imaan kartaa iyadoo kalsoonida shacabka uu soo noqdo ciidankiina muraal uu helo shacabka iyo ciidan iyo dowladana ay wada shaqeeyaan haddii dowladda iyo shacabka ay wada shaqeynin dowladda timaadana way burburaysaa ciidan dhismaayo ciidan qaranna ma jiro ciidan kasto beeshii shalay uu ka mid ahaana waa tahay barliin dhowaan waxaad ka soo laabatay magaalada muqdisho dabcan waxaad la soo kulantay qaar ka mid ah xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ha ugu horeeya wasiirka gaashaandhigga yaa kaloo soo aragtay wasiirka gaashaandhiggaas maxaa ka wada hadasheen saraakiil ciidan badanaan soo arkay aan la kulmay waxaan tagay jiida hore dagaalka meesha la yidhaha walaweyn seexda ciidamada meeshaas ku sugan waxaan soo arkay nolosha ay ku nool yihiin xaqiiqan ciidankii aan sanad ka hor u tagay iyo ciidankan differenta u dhexeeyo isbedel weyna u dhexeeyo oo dhinaca mishaar ay helaan oo ay qaataan bil walbo gunno ay helaan raashin ay helaan ciidamadii maasha allah waxa ka maqan niyadii askarigu waa inuu naga hela annaga guubaabo dhinac walba taakuleen dhinac walba tii yaa maqan marka ta keliya aan ku gaari karnana waxay tahay annagoo isku tashano istusinana in annaga dowladdeena dhisa karno marka hadda lagu leeyahay dowladda waxay dalbatay in lasoo kordhiyo ciidamada qaranka in lasoo kordhiyo ciidamada amisom in laga taakuleeyo ciidamada dowladda gawaari iyo gaadiidka ciidanka aan hubka ku jirin waxa taas ka adag taakulada shacabka marka ay badato inta ciidanka ka mid naqanaysa dhalinyaradan way badanaysaa gaariyadaas aan hadda rabno ee caalamka nagu ogaanayo nivooga uu taagan yahay ama heerka uu taagan yahay ciidankeena ma arki kara hadhow caalamka ma ogaan karo awoodda ciidankeena uu leeyahay markii annaga baahida aan daboolno laakiin ciidanka markii ay qaramada midoobay ay intaasoo ay soo siiso huba ama intaasoo gaariya ama intaasoo waxaa la dareemaa heerka ciidankaaga uu taagan yahay taasna waa ka guulaynaa urarkeena guddigeena waa tahay guud ahaan magaalada muqdisho waa timid waa soo aragtay dhinacyo badan waa soo aragtay magaalada muqdisho shalay imaantay iyadoona maxaa farqiga u dhexeeya amniga magaalada muqdisho boqolkiiba 99 waxaan dhihi karaa sanadka hore wuu ka fiican yahay sababaha aan taas u leeyahay sanadka hore gaariyaa leegu ilaalinahay inta badan sanadkan waxaan soo sameeyey intaan BL raacay aan xamar oo dhan kusoo wareegay aan meel alla meeshaan raba tagay aan si nabadgelya kusoo maray taas waxaa kaaga sii daran sanadkii hore meesha maqribka lagu gaaro guryaha lagu wadi jiray sanadkan 4 saac 5 saac waa la socdaa baabuurtu way socdaan waxaa jira checkpointyo ciidan joogo ciidanka intuu ku istaajiyo uu ku baaro uu ku sii deynaa halkii aan ka qabnay 22 sano ka hor ciidan markuu ku istaajiyo wuxuu raba samay jiray marka waxaad dareemi kartaa amniga inuu sii fidaayo teeda kaleentood markii aan tagay waxaan la kulmay markii laga bixiyo saraakiishaas wasiirka gaashaandhigga aan 2 jeer la kulanay guddigeena waxaan u bandhignay hawsha aan qabanay walow uu wax ka ogaa oo aan dhowr mar la xiriirna by telephone heerka ay noo xafiiskiisaan ku wada kulanay waxaan u bandhignay heerka uu marayo guddigan maalinta aan bilownay wixii aan qabanay wixii aan la taaganahay waxa ugu weyn aan u sheegay waxay ahayd waa awoodaa in aan ka soo aruuriyo 6,000-7,000 oo dollar qurba joogta ee aan maanta ciidanka hor dhigo waxay naqanaysaa wax hal mar dhacay laakiin annaga waxaas wax ka duwanaan wadnaa waxaan rabnaa si qofka Soomaaliga uusan waxba u dareemin dhib ah bil walbana ay u helaan ciidanka waxaan hor dhignay qorshe howleedkeena si fiican u soo dhaweeyay
teeda kalentoodna anagoo ogolaasho ka haysan dowladda wax ma ku dhex dhinac wadi karno waa inaan ogolaasho ka helnaa dowladdii marka shalay hawshiin wacyigelin ahayd maanta ficilka ku dhaqaaqay maanta ficilkan ku dhaqaaqaynaa iyadoo ay ku xiran tahay dowladdii waxaan u bandhignay anagoo shacabka matalayno ee shacabka soomaaliyeed ah in aan la nimaadno hiil iyo hoob inaan la nimaadno gubaabo inaan la nimaadno taageero in aan ka shaqayno amnigii ma aha keliya inaan wax dhiibno amnigiina inaan ka shaqayno waxaa kaaga soo qaadi karaa degmada boondheer aan deganahay waxaa joogo ku qoran ciidan roondo ku sameeya habeenkii ciidanka wuu yimaadaa habeenkii wuu ka warqabaa laakiin ciidanka wuxuu degan yahay stadium muqdisho waa ciidanka qaranka waa ee habeenkii roondada ku sameeyo shacabka haddii aan nahay annaga marka waxaan rabnaa ee aan u bandhignana dowladdii annagoo guddigan ah ciidankaas habeenkii imaanayo waxaan weydiiyey dadka dariska ah ciidankaas ma taqaaniin taleefanadooda ma haysatiin waxay dhaheen ma haysano laakiin amniga way sugaan waxaan marka aan hubnaa annaga guddoomiyaha degmada afartan laamood ee degmada boondheer ee ka kooban tahay guddoomiyaashooda waaxyahooda guddoomiyaasha joogo ee dowladda usoo wakiilatay intaas in la camal ah ee lamid ah shabaabka inuu usoo wakiishay ay u joogaan isla markaasna ay qabtaan hawsha ay dadkan qabtaan mid ka badan marka tan looga gudbi karo waxay tahay ee aan hordhigay wasiirkiina in askarigaas iyo canuga 4 jirka ee isyaqaanaan oo maanta dhihi karo abti hebel meeshaan marayo si ciidankii hadhowta xataa ay usoo gashaan shabaabkii dhar ciidan degmada markuu soo galo nin dhar ciidan wata ee aan hebelkii uu 4 jirka yaqiino uusan ahayn wuxuu leeyahay ninkii ma aha amniga xataa in aan ka shaqayno ee aan shacabka isticmaalnay shacabka si iskaa wax u qabsa ay uga qayb qaataan amniga waa tahay marka hadda qaabkee ayaa wax ku aruurinaysaan intay ka bilaabi doontaan sidee wax u rabtaan inaad wax u aruurisaan oo aad wax u samaysaan hab noocee ah ayaad ka aruurinaysaan dadkuse wacyigelinta ka sokow jawaabo fiican ma kala kulantaan dadka su-aalaha ugu badan aan kala kulanno waxay tahay su-aasha hadda mar hore weydiisay yaan ku xawili karnaa lacagteenu ku aamini karnaa ma tegaysaa meeshaan ugu talagalnay yaan aamini karnaa shacabka waxaan leeyahay annaga aan aaminaysiin because annaga idinkii aan nahay shacabkii aan nahay annaga lacagtiina waxay maraysaa akoon waxaa laga furayaa xawaalada shaksi kastoo naga mid ani adiga kamid ka kow lacaga xawilnaa bil kasto waxaa laga yaabaa 2 jeer 3 jeer inay xawisho aniga sidoo kale waxaa laga yaabaa 2 jeer 3 jeer inay xawilo halkii mar waxaa laga rabaa kaliya bishii $2 inay xawilo aniga bishii waxaan dhiibaa canshuur wadankan 1500 lacag u dhiganto aan canshuur u dhiibaa wadankan aan u dhalan wadankeygii inaan $2 u diido waa wax oo aan damiirka Soomaaliga oo ku jirin teeda kale inta shacabka ay ka timid baahida ma waxa anaga dhahayno shacabkiyo saas yeel aan amar ma aha shacabkii ka timid aragtidii fikradii ra'yigii shacabkii ka yimid markii aan xawala aan furno akoonaan furayna jaa xafiiskiina xamar waa ka furnay akoonaan furayna akoonka marka aan furno adu xawaalada dhigaysaa markii aad naqata marka deeq bixiyihii ama taakuleen bixiyihii lacagta taakuleynta waxaan ku sameynaa aqoonsi testaran ku sameynaa aqoonsi beritoole markii aad wadanka timaado ilaa qurba joogta lacagta laga qaadaa moogta even kuwa xamar joog waa laga qaadaya qofkaas si uu uga duwanaado kii aan ahayn deeq bixiyihii ee xafiiska uu tago iyo meesha uu tago ahmiyad gooniya loo siiyo ee la yiraahdo alla ilaa ninka waa muwaadin wadaniya ma fahamtay waxaan dhigaynaa broshiiro cadaynayo ogeysiis habka wax ku baxayaan weyga ay marayaan teeda kale waxaan sameynaynaa noo diyaarsan hadda qorshe howleedka aan dejin 4 sano xawalaad kasto in aan marka ogolaashaha aan helno dawladda aan ka helno in aan 2 xubin ay xawlaad kasta la xisaabtanto ay tiraado inta noo soo dirtay $2 ee markaas aan wax ku qabano maxaan ku qabahaynaa marka waxaan ku qabahaynaa waxaan ka bilaabaynaa in aan agoonti u dhisno
xerihii agoonta ciidamada in aan daryeel xagga lagu sameeyo meeshaas in aan waxbarasho ay helaan caafimaadkiina ay helaan kadalika in ay naafada ciidanka ay waxesho maanta waxay joogaan isbitaal martiini waa isbitaal guud isbitaal martiini marka bil walbo sanadkii 2 mar laga yaabo inay diaspora wax u diraan haddana la iloobo marka waxaan rabnaa ayagana inay helaan wax joogta isbitaalka laga raro isbitaalkina hawshiisii loogu talagalay ay u socoto ayagana aan dejino meel loogu talagalay waata baalin ada hadalku wato hadaladaada waxaa ku jiray in aad tagtay deegaanka Walaweyn sax ciidamadu mushaar iyo gunaba ay qaataan lacagaha ayaa siinaysaa maxaa ku qabanaysaa lacagaha waxaan ku qabanaynaa saan hore kugu sheegay annaga ciidanka dagaalamayo waxay nagu leeyihiin dhiirigelin ma haystaan bustayaal dhaxanta isaga celiyaan ma haystaan roobka waxay isaga celiyaan dharay u baahan yihiin waxyaabo noocaasa iyo inaan guulaha qaar markay gaaraan aan siino premium annagoo shacabkii inta u tagna aan premium siino ciidanka dagaalamaya intaasay nagu leeyihiin awoodda ugu badan oo aan rabno in aan ka shaqayno waa agoonta aan daryeel haysan askariga maanta dhinto xaaskii carruurta oo ka tagay familku asaga ka dhintay dul saaran yihiin in aan ka qaadno dowladdan ay kaalinteeda ka qaato dowladda kaalma u baahan tahay marka lacagtan aan bixinayno waa kow inay bilaabaan golaha wasiirada kow inay ayaga iska bilaabaan si shacabka ugu daydo noocay raba $2 ha dhiibaan ka badan xataa kama rabno guddigiina ma Muqdisho ka shaqeeya mase qurbaha muqdisho ka shaqeeya qurbaha ka shaqeeya wakiila magaalo kasta noo joogo wakiiladaas waxay hawsha bilaabayaan markii ay dawladda tiraado alla ilahay guddigan waa guddi nala shaqayn karo walow hadda wasiirka uu yiri waa nala shaqayn kartiin waana idin baahannahay uu ku qancay hawsha aan wadno iyo inta heer soo gaarnay markay golaha wasiirada bilaabaan $2 ay sameeyaan akoonka markaan furno baarlamaanka sidoo kale ay sameeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku ridaan $2 marka shacabka muxuu naqanayaa marka ayagu ku daysana ayagana aan sameeyno teeda kale intood shacabka waxaan rabaa inaan fariin aan u diro fariintaas oo aan joojino ka soo horjeedka iyo daayada dawladda timaadaba aan rabno inaan ku dhantaano ninka maanta wasiirka ee maanta joogo dal aan lahayn wax soo saar ee maanta dekad iyo airport kaliya fiirinayo dawladdu waxay ku xiran tahay Muqdisho runta hadaan ka hadalno boosaaso dawladda ma hoos timaado airportkeeda iyo dekadeeda wax ka soo galo waqooyi galbeed sidoo kale Kismaayo sidoo kale waa inta hadda dawlad goboleedyada ay ka jiraan dawlad markay rabto inay ku dhaqaaqdo ama ay ku shaqayso dakhliga soo galaya airportka Muqdisho iyo dekada Muqdisho ina ugu sii darno aytano ee aan dhahno wax ma tari yaa la dhihi kara wax ma taraysiin waxa la dhihi kara dawladahan aan joogno oo kale marka canshuur bixiso la xisaabta marka canshuur bixiso canshuur maadan bixin dawladii hadana moraalkii aad ka dilay ninkii wasiirka ahaa maanta wasiirkii waa guddigii fulinta waa dadkii isha u ahaa dalka iyo dawladda waa dadkii wax qaban lahaa markii haddaan dhahno wasiir hebel muxuu qabtay wasiir hebel muxuu ka sameeyey wasiirka shacabki hawsha u qabanay ayaa mucaaradka markii aan mucaaradnimada joojino teeda kale intood markii aan sport yahay markii aan garoonka aan ku dayno dalkaas intaas oo kiiloomitir 10 milyan dad u dhaafay aan ku dayno dhowr qof oo baarlamaana dhowr qof oo wasiirra ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ee aan dhahno wariyaada wax qabta ee anagana tarabuunka aan u fariisano ee aan macquul ma aha waa inaan shacabkii la yimaadaa dawladdaas ilaalsadaa asaga ka shaqeeya sidii dawladdaas u jiri lahayd qarannimaas u jiri lahayd haddii aysan qarannimo jirin marka dhibka imaan kara waxay tahay sida haddaba jirto argagixiso caalamiga dalkeena inay kusoo duusho carruurteena in ay miinooyin ku xirtay tiraahdo carruurtii kale wax baranaysay guba ee isku daadiya waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa shabaabka marka uu Muqdisho joogo shabaab waa carruurteena waa ciyaalkeena manipulation lagu sameeyay maskaxda laga dhacay laga xaday waxa ka dambeeya argagixiso caalamiga sida la wada socono runta haddii aan ka hadalno waa tabarin adoo hadalkaaga warto waxaa jirto muddo 20 sano ayaad qurbaha ku sugan tahay haddana waxaa jirto in
nidaamka argagixisada ama nidaamka marin habaabinta in qurbo laftirkiisa uu soo galay oo caruur aad u fara badan laga marin habaabiyo wadamada hadda aanu ku sugano oo reer galbeedka ah ama Sweden ha ahaato ama Norway ha ahaato oo hadda Norway xitaa lagu soo warramay laba gabdhood walaalo ah in Syria ay u dagaal tageen Denmark dad ay ka baxeen Soomaaliya qaarkood iska qarxiyeen arrimaha noocaasi ah dhabaantiin waxaa taa hooyo Soomaaliya hadda meesha joogto sidee u dareemaysaa والله حنون أدو درن وأنا كوبي كرين درينك أنا كوبي كرين حنون كله مركل اللي يرادو عنك صوماليات سويلد تنكد عاد عمل إيا الجامعات كبحة وحي كده قال ما يا سوريا وحلا أركي أركت أرجع حسد عالمي جاء إن صومالي ده يتهاي ده جيسيان أب يسرقوا لجيسني ماذا وحي أركتي ده دين تجعل إنيين waxaa jira marka ayagoo laga faa'iideysanaya kartida iyo geesinimada ay leeyihiin caruurteeni in lagu laayo isla caruurteeni isla markaasna la geeyo dalalkan carabta ee hadana la yiraahdo war meeshaas ku shahiiday ku dhinta waxa iyagu calool xumo badnaa markii Westgate la galay waxaan ka aragnay YouTube-ka iyo telefishinada caadiga ayagoo sii deynaayo naag cadaan iyo caruurteeda iyo gabar kale oo Afrikaan ee dhahayo bax shabaabkii meeshaas kale annagana waxay ku sameeyeen dalkeena islaamihii masaakiinta ah 2008 ka xamar joogi Itoobiya kama ku xamar joogi marka al-mukarrama islaam maskiinahay jawaan galeeya dhulka u xaqayso in ay miino u duwan qashinka ujeedada ka dambaysa marka ururkan taasay ka mid tahay in shacabki ka midoobo hal orahna yeesho in cadawga jiro oo yahay argagixisadaas caalamiga ah nagu soo duushay iyaalkii ay ayaga naga marhaabiyeen aan ku dadaalna sidaan ku soo celin lahayn aadiya waa maasan tahay Berlin gabagabadii waraysigeena marayna hawshan baaxad leh ee guddiga taakunaanta ciidamada qalabka sida rajaynta laga ka qabtaa inuu najaxo wallahi markii aan la kulmay wasiirka gaashaandhigga ee uu soo dhaweeyay oo ku riyaaqay hawsha guddiga oo wado iyo weyga oo wado ay ka duwan xoogaa weeyada kale Soomaalida wax ku aruushaan boqolkiiba boqol waxa waaye mid hirgalay mana aha dawladdan kaliya dawlad kasta oo timaado waa mid la shaqeyn doono waxa kale oo jirto in aan sameey doono wacyigelin TV-ga qaranka codsiga waa u sheegay wasiirka waan iga ballan qaaday inuu wasaaradda warfaafinta wasiirkeeda la xiriiri doono inaan aruurino saraakiishii hore ee beeshinka gashay ee ciidamada in aan aruurino dadka xog ogaal ku ahaa dhismaha ciidan maalintii koow Soomaaliya ciidan loo aasaasay ilaa ay hata laga hadlo bal muxuu ahaa ciidankeeni si hoose loo faaqido meeshaas wacyigelin laga sameeyo isla markaasna aan sameeyno annagoo tan aan wadno $2 dad waxa jira ka badan raba sida dadka hadda nala soo xiriiray annaga ka badan aan wadnaa ka badan qofkii awoodo si uu daali kara si free feeling si oo maxaa la yiraahdaa iska wax u qabsay wuu u sameey karaa qofka ma ka celinayno laakiin annaga $2 kaliya uun baan ka rabnaa marka waxaan rabnaa wacyigelintaas inaan ku barbar dhigno isla markaasna aan ka aruurino program aan sameeyno hadda TV-ga qaranka amal program salaamaha jiro program noocaasa program la yiraahdo horumarka jiro marka waxaan rabi lahaa programka salaamaha oo kale wadanka marxalad adag ku jira inaan ku bedelno programka wadaniyada programka ka qayb qaadashada dhismaha iyo amniga barnaamijyo badan ayaa jiro oo kamid ah barnaamijyada dalajir barnaamijka horumarka dalka iyo barnaamijyo kale oo run ahaantii la turkooda wax taray haddaba daawadayaal gabagabadii barnaamijka annagoo marayna Berlin Maxamuud Cadaawe waa gabar Soomaaliyeed runtii ah gabar isboorti ah oo kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee wax ka soo abaabulay gabdhihii lagu tababaray ama gabdhihii guulaha wax ku oolka ka gaaray wadanka Qatar gabdhaha soo qaarkood intooda badan lagu tababaray wadanka Sweden iyaduna ay kamid ahayd dadkii hooyooyinkii buddig u ahaa isla markaan ku tababartay tuulada aan ku noolnahay ee Catherine Holland haddaba marka Soomaaliya la tago wararka naga soo gaaraya ama waxyaabaha tilmaamaya waxa kamid ah in qurbo joogta magacyo kala duwan loo bixiyay dadku qaarkoodna siyaabo kala duwan u arkaan haddaba Berlin marka aan halka tagtay adigoo qurbo joog ah sidee dadku kula dhaqmaayeen maxaa dareemaysa qurbo joogta dadku waxa la dhahay dal joog qurbo joogtu iyo qurux joog ee sheekadu ay kala baxday ma jeclaa la yiri inta badan waa lagu xiriiriyay hawliya lagu xiriiriyay xafiisyada lagu xiriiriyay hoteelada lagu xiriiriyay jidadka lagu xiriiriyay
dareenkii ay qabeen dadkii aa u tagtay sidoo u ahaa wallahi dareenkii ay qabeen waxaa ka mid ah kow in qurba joogta ay u arkaan cadowga labaad ee shabaabka usoo weheliyo because markii ay wadanka xagga tagaan waa ayaga u horeeyo oo shaqadoona waa barinay marka guddigan aad samayseen yaa xubna ka noqon karo mase jiraan shuruudo ku xiran guddigan marka qurba joogta waxaan fari lahaa in ay ku midoobaan guddigan ay ka qayb qaataan sida uu ku hirgeli lahaa ay ka qayb qaataan socodsiiskiisa hawshan muwaadin kasta oo Soomaaliyeed waa ka mid haddii uusan soo gelin khiyaano qaran haddii uusan ka soo qayb qaadan dagaaladii sokeey uusan dagaal uga soo noqon haddii uu yahay qof wadanka wax u soo taray raba haddii inuu wax u taro intaas buu naga qayb qaadan karaa وهاجادي هذا يوم أصلاً تاسوحة هاد مرو بارلين محمود عداوي أو قدومية جودجا تاكلين إذا ماذا قلبك سدا أو سنة كورولوجا كذا واقعي ودنك السويدن هوله سنة هاد وعي قرن من كان وبلعبتي إنه هو شادي أي نقطة فعلا برنامج كان يجار كها موريسي أنا لي لأنني غير كها برنامج كبعد دون سينقصه جبينية لأنك فرصة ماذا كاميرا ذا وحق عني قسي مصطفى حسن راجل مصطفى خان وعبد الرحمن حذيفي ودلتني كل دم بسداسيو نبض كليو